barwaaqo horseeday wata hayaan jidad la wata u guurtay wata higsanaysa meesha adduunyadu horay u gaartay hindisihi dawladeenu barwaaqo horseeday wata hayaan jidad la wata u guurtay wata higsanaysa meesha adduunyadu horay u gaartay hindisihi dawladeenu barwaaqo horseeday wata hayaan jidad la wata u guurtay wata higsanaysa meesha adduunyadu horay u gaartay. الرحمن الرحيم وزيرك arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyiinta gudoomiye ku-xigeenka gobolka Karkaar gudoomiyaha degmada taliyaha qaybta Astar Jawaaso si gaar ah u salaamayo iyo inta kale ee halka joogta dhamaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bahda isboortiga inta ciyaarta iyo inta taageerta intiinaba si gaar ah ni salaamaya idinkana runtii aad baan ugu faraxsanahay weliba gabdhuhu inay ka taageera badan yihiin wiilasha waa arrin horumar leh oo aad baan u fiicanahay waxaan rajaynayaa wixii aad ku hadli lahaydeen muuqaal baa noo tusteen waan aragnaa sida aad ugu heelan tihiin inaad isboortiga hormarisaan annagana waxaan ballan qaadaynaa haddii ilaahay idmo inaan gacan buuxdo oo weyn aan ka geysan doonno haddii ilaahay idmo siday magaalada Qardho oo matalaysa gobolka Karkaar ay u heli lahayd garoon ku habboon kooxaha tirada badan ee hadda aan aragnay meel ay ku soo bandhigaan xirfadooda ciyaareed oo tartankooda ay ku qabsadaan waxaad ogtihiin ahmiyadda ay u leedahay xukuumaddan waxay ka mid tahay 8 yool ka mid ayaa ka mid ah horumarinta dhalinyarada waxaad markhaanti ka kacdeen intii yarayd aan joognay inta aan gacan geysanay dhinaca dhalinyarada iyo horumarkooda hadday ahaan lahayd wacyigelintooda tababaradooda qorshe u samayntooda sanduuqa horumarinta dhalinyarada ku dhawaaqidiisa iyo garoomo aan dhagax dhignay iyo kuwo aan deeq muuqato ku bixinay waxaa hadda gacanta lagu hayaa garoomada Gaalkacyo Garowe iyo Boosaaso oo aan rajaynayo sanadka inta ka dhiman inay dhamaystirmaan waxaan jeclahay waxaan ballan qaadayaa inay wax xaqiiqa noqdaan waxaan rabaa inaan ii sheego wixii aan qorshaysnayn oo soo baxa waa khayr xag ilaahay ka yimid laakiin gobolka Karkaar ee magaalada Qardho waxay ku jirtaa qorshaha 2020 ee dhowrka bilood laga xiga hadii ilaahay waxaan si guud oo dawladeed iyo si gaar oo shakhsiga u ballan qaadayaa garoonka Qardho inuu dhamaystirmo waxaana ballan qaadayaa bilowga hore in aan aniga shakhsiga ka qayb qaato hadii ilaahay laakiin hawsha dawladdu waa la sii qorsheeyaa oo la iskaga dhawaaqi karo hadii kale waxay noqonaysaa been bay isu bedelaysaa marka waxaan rajaynayaa qorshaha iyo miisaaniyadaha soo socda inay geli doonto laakiin anoo la kaashanaya kooxda u qareemaysa oo Astar Jawaase ay madaxda u tahay inaad mar dhow arki doontaan garoonka oo wax ka bilowdeen waana rajaynayaa gaar ahaan garoonka Qardho dawladuna inay qayb ka qaadato u qareemidiisa kuwa kale waxbay ku daraysaa kaliya Soomaa kan annagana guddiga qareemada galayna hadii ilaahay marka waa in la qareemeynaa cid kastoo noo timaadana waan ku boorinaynaa inay garoonka wax ka qabato maadaama uu yahay garoonkii ugu populationka badnaa xagga dhalinyarada ee garoomada aan tagnay uu kan kowga ahaa saas waxay ku mutaysanayaan ahmiyad gaar ah weliba waxaan anigu u goostay inaan u qareemo maadaama gabdhaha gobolka
qardho magaalada qardho ee aad isboortiga u jeceshahay gabdhaha dartoodaan anigana qareebidda uga qayb galayaa maxaa yeelay waa xubinno muhiim ah oo horumarka dalka aasaas u ah runtii magaaladan waxay caan ku tahay tacliinta waxay caan ku tahay sportska waxay caan ku tahay dhallinyarada waa meel ku habboon nolosha khaasatan qoyska iyo ku dhaqmidiisa taasaa waxaa keenaysaa in ay qoystu halka ay ku tarmaan oo dhallinyaro badan leeyihiin oo ubucu ah deegaano ballaaran oo ku xeeran magaalada qardho waxaase ogtihiin oo anna aan ogahay ayaantan dambe dhallinyarada ruuxaddooda sidii lagu aqoon jiray sibaa u wehelisa waxaan maqlayaa dhallinyaro habeenadii falxu samaysa mukhaadaraadkii inuu soo galay moobaal furashadii inay iyaduna timid sidaa warka ku ogahay marka hadda caabin ugu taallo wey taas haddii dhaqan xumaduna ay soo siyaado marka waxaan rajaynayaa dhallinyaradu inay qayb ka qaadato inay iska qabato inta xun iyagoo la kaashanaya laamaha amniga oo aan rajaynaya inay shaqo fiican oo wanaagsan ay hadda wadaan runtii wax aan ku qanacnaan na tusteen waana rajaynayaa in aad arki doontaan abaalka dawladda aad u gasheen oo ah sida wanaagsan aad u soo dhowayseen anigana ilaahay idankiis ballantaas inay fushaan rajaynayaa si dhow oo dhaqsa ah haddii ilaahay aad baad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu